السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal soo dhawaada waa Safiya Faarax Maxamed waa in salaama dhamaan inta soo galayso inta ku jirto casharkeena maanta waxa noo socdo oo shalay saa ku tilmaamay waxa ka hadli doonaa waalidiinta iyo technology-ga sida ilmaheena uu dhibaato u gaarsiiyay marka mar labaad waan ku soo celinaa walaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhawaada subax wanaagsan marka hore horta alxamdulillah ilaaha mahad iskale oo nagu kulansiiyay qadka dhibaatada marka maanta aan ka hadli doono waxa u badan tahay ilmaheena anaga nafsadeena dhibka uu noo gaarsiiyay technology-ga marka before aan u guda galin kulligeen waxa idin leeyahay well done masha Allah maanta waa maalintii 11aad oo mindset-keena ah waa tii aan dhahay 21 bari waaye marka masha Allah wax yar aan nooga dhimanba aw guriga idin dhihi la dhamaantiin marka topic ina hadda bilaawo topiga maanta ka hadleynana kulligeen anigu u quseeya adigu ku quseeya ilmaheen u quseeya nafsadeena inta adduunka caalamka dhan u quseeya wax laga wada qeeliyo waaye waxaan u dibdhigay programkan waxa program aad u baahan in si fiican loo kala bixbixiyo sababtoo ah koow horta waxaan ka hadli doonaa wanaagu leeyahay iyo dhibku leeyahay haddii labadooda la isku dhigana dhibku leeyahay ka badan adduun waxa ku noolnahay generationkiisa maalin kasta wax cusub u soo baxayo waxa sidiina badan waxa wada ogtihiin telefoonka markuu soo baxay waqtigiisii waxay ahayd inuu spread ku noqdo adduunka oo dhan waxay ku qaadatay ilaa 20 sano ama 15 sano waxa ku soo xigay computerka iyo waxaan waqti yar gameka ilmaha ku soo xigay within 1 year ama 2 years hore ma aragtay uu kaga noqday marka muxuu dhibaatada anaga qaas ahaan dad muslimiin ah hadaan nahay dad ma aragtay maskaxdeena la rabo inay korto muxuuna gaarsiin karaa programkan waxaan u soo qaatay because wuxuu qayb ka mid yahay qaabka oo programka maskaxda sida loo programka loogu sameeyo sababtoo waxaan ka soo hadlay subconscious-ka wixii la geliyo inuu qaato oo lagu abuuro inay tahay subconscious-keena beer aad abuuraysid wixii aad ku shubtid uu ku abuurmaayo beertaas hadaa fruit ku abuurtid fruitkaasi ku bixinaysa haddii fruit aadan ku abuurina wixii banaanka ay ka soo qaadato maanta marka waxa ka hadlaynaa technology kama hadlayna wixii dad ama qof afka ka dhahay ama wax hadal oo ku dhibsaday waxaas ma technology-ga dhibka uu leeyahay marka dhibka uu leeyahay intaan u gadagelin waxaan rabaa inaan wax yar idinka taabto xagga maaragtay biochemistry ahaan ama biology ama saa u taqaanaan oo maskaxdeena qaabka wuxuu u geysto waan isku dayayaa inaan luuqadeeda xataa aan jilciyo dadka u badan hadda chemistry ama biology aad barateen waa fahmi kartiin wax yar aan ka taabana maxayna u tahay muhiim inaa ogaatid damage-ka uu maskaxiyan ilmaha u gaarsiiyo saa ogtihiin intaanan ma aragtay ilmaha laga bilaabo intuu cunug ma aragtay aad u yar yahay ilaa 25 sano ay dhahaan scientist ilaa 30 sano waxaa jiro maskaxdeena ma aragtay aan develop sameynin waxaa la dhahaa biochemical kan ka hadlaya myelin la dhahaa myelinkaas marka waxa waaye nervous system-keena neuronka oo ma aragtay firing-ka maskaxdeena waa aragtay waa sida telefoonka oo kale waa yar badan ku xiran ilmaha markay yar yihiin oo baby ay yihiin ama young adult iyalka yar si fiican connection-kii ma isku xirna connection-ka marka wire-kii neurosystem-kii iyo nervous-ka saas isku dhaxda waxa ku jiro wax la dhaho fatty myelinkaas waa wax isku xiraayo connection-ka isku sameynayo marka ilmaha markay yar yihiin connection-kii ma develop ma sameyn ma korin maskaxdooda diyaar ma sida hadda anigii adigoo kale myelinkeena uu noo koray maxaa la dhahaa information sidii u kala bixinaya marka dhinaca qaybta maskaxda oo myelinkaas uu korin waa qaybta go'aanka laga gaaro waa qaybta ugu fiican oo ibn aadan naga dhigtaba anagoo dhanba ibn aadan waa qaybta attention-keena marka wax rabna inaan sameeyno wax marka qabsano noo shaqeyso inta ku taalo waxa la dhahaa prefrontal cortex waa dhinaca ugu muhiimsan oo ibn aadanimadeena naga dhigto oo wax walba multitask ku qaban kartid hadaa baawur dhinac ka wadid oo wax kale ka fikiri kartid hadaa hooyata cunto karinaysid oo cunuga ama telefoon inta ka soo dhaca hore ka ordi kartid decision-ki maxaa la dhahaa adiga fikradahaadii dhaqdhaqaaqayo dhan oo isku qaban lahayd meesha korinaysa waa inta prefrontal cortex marka ilmaha markay yar yihiin
meeshaas maalinkii oo isku xiri lahaa oo xiriirkii u sameyn lahaa waa adiga fiilooyinka isku xirnaa dhaqaaq ma dhamaystirna ma weli ma dhalan dhinaca kalena markuu qofka weynaado uu 40 dhaafana maalinkaas maxaa la dhahaa wuu decrease uu noqdaa si fiican uma koro waa marka qofka markaa weyntaho kale xasuusta kaa dhunto kale waa meelaha oo xasuustaada ay ka yaraato waxaa laga yaabaa inaad furo jeebka kugu jiro amaanta dhanku guri kusoo wareegsaa dhahid furahayga waa dhinac fiirsid waa meesha kaliya oo decrease-kan oo kugu yaraato waa ahob inay fahantiin adinkoo raalli ah waanu kusoo celinaa hadhow da question iga weydiisin marka ilmihii meesha xasuustii waaye xasuusaa ku jirto waxaa ku jira meesha attentionka kaa siin lahaayeen marka aad u yeertid oo kale hebel aad dhahad uu kusoo fiirin lahaa ma develop ma sameynin meeshaasna prefrontal cortexkaas aan kuu sheegayana waa meesha mar kasta ilmaha ka dhigayso inay wax qabtaan oo ay attentionkooda kusoo jeediyaan adduunka marka maantay maxaa anaga maaragtay technology-ga maxaa dambiga ugu weyn aan qabna maxay tahay aniga nafsadeeda iyo adiga ilmihii iska badaawo ciyaalkii waaweynaa guriyihii waxaa soo dhiganay iPad waxaa soo dhiganay baalka ilmihii cunuga markuu ooyo ama wax yar uu dhaho gacanta laga saaraa anaga ma controlna ilmaheena wixii noloshooda u fiican sababtoo technology-ga wuxuu ka xiraa waxyaalo badan anaga waxaana ibna aadan ahaan ilaahay wuxuu noo abuuray wax la dhaho communication social communication inaa isla hadalno oo qofka ay maaragtay la fariisatid la hadashid saas oo waxaan ku nahay ibna aadan laakiin maanta ibna aadannimadu waxay ku baxday social in la dhaho inaa ka heshid waxyaalihii oo qosolkii waxyaalihii hadalkii inaa mediaha kaliya ka heshid oo uu ku noqdo mediaha wixii farxadaada ku siin lahaa wixii ku siin lahaa qof hadaa rabtid inaa la hadashid waxaa laga yaabaa inaa qof la sheekaysanaysid oo maanta dhan aa faraxsan tahay oo laakiin qof ibna aadan oo contact aad la lahayn sida hadda animalka oo kale waxay ku nool yihiin banaanka meesha nature-ka ku nool yihiin animal to animal waa isla communication isla sameeyaan waa isla socdaan anagan ilaahay koonkan wuxuu noo keenay ibna aadan inaa isla hadalno oo contact isla sameeyna eye contact inaa isla sameeyna ma aragtay wada fariisi ilmaheena marka waxaasoo dhan waa ka tirtirnay anaga wixii aan kusoo kornay wixii naga dhigay ibna aadanimadoo dhan gadaalay u degtay maxay noqotay in attentionkoodii oo dhan waxgaradkoodii oo dhan wixii meesha ay ka arki lahaa inuu computerkaas uu galo computerka game usii dheer yahay noocyo kale usii kale leeyihiin waa ogtihiin guryaha ilmaha idiin joogo aniga kuwa ii joogo mobilka in cunuga u ogolaatid mobilka inuu sariirta la aado ula seexdo muxuu gaarsiin karaa cunugaas dhibaato ah ilmaha marka maxaa ku haysanaa guriga qolof ma ku haysanaa mise qof ibna aadana guriga noogu nool berri marka ilmahaas maskaxdooda ee wax noqotana see wax u aragnaa cunugi markuu go-aan gaari waayo cunuga ma qalad ka saareenaa mise anaga nafsadeena qaladkiisa saareenaa sababta ilmahan waxaa lagu dhahay meeshii waxgaradkoodii kor u kicin lahayd oo lagu dhahay prefrontal cortex maskaxdan ma aragtay fooda hore oo kaa dhigayso waxgarashadeeda ku siinayso maskaxdaasna geeskaas aaday muhiim u tahay hal qisa idinkaga sheekeynaya dadka ma aragtay oo ku dhaco maskaxdooda damage-ka uu gaaro waa meeshuu ka gaaro hadduu kaa gaarana waxaa kaa dhumaya xitaa fahanka waxaa kaa dhumaya inaa social dadka akhlaaqdaadii dhan aa dhumayso xanaaqaaga badanaya haddaa xataa qof dhib badan aada ahayn guurkaa kaa burburaayo maskaxdaada intaas waa halkaas waa meesha ilaahay subxaana watacaala xataa qur-aankuu ku sheegay waa meesha foodaas u horeyso waa meesha ibni aadannimo anagoo dhan naga dhigtay oo naga duuday xoolaha caqligeena uu ku jiro oo ilaahay subxaana watacaala uu ku dhahaa miyaana caqli aadan lahayn foodaas meesha hore waaye marka ilmaheeni markay ku bataan technology-ga isticmaalkiisa scientiska waxay ogaadeen ma ahan hal oo labo meelo badan ay ku sameeyeen wadamo badan ay ku sameeyeen ilmo xalay iyo shalay markaan fiirinaya waa yaabay wallahi istaadiyo badan ay soo baxay mana kulligoodna idinlama qaybsan karo laakiin midda ugu shookan garana ugu badana idin sheegaya waxay fiiriyeen ciyaalka oo ku jiro 15 minute every 15 minute waaya mobilkooda fiirinayo haddaysan fiirinin ay ku dhacayso waxa la dhaho anxiety cabsi weyn ee ku dhacayso waxay ugu dhacaysaa waxay fiirinayaan muxuu saaxiibkii soo dhahay muxuu kan soo dhahay attentionkii markuu muxuu galay wuxuu ku xirmay wire uu ku noqday maaragtay laptopka ama mobilkaas uu ku noqday saas markuu ku noqdan cunugii muxuu dhuminayaa xasuustii
sababtoo wirekii oo loogu talagalay oo caqligu u yeeli lahaa ama ka kala celin lahaa ma dhalanin maskaxdaana waxay sameynaysaa wixii exactly waana idin sheeg waa lazy wax ma qabsato waxna ma garato ilaa adiga aad ku aadisid wixii saxsanaa adaa controlo marka ilmo yar aan waxba controli karin oo waxba fahmi karin haddii ka waran oo baby meesha laga bilaabo laptop ipad usoo gidaa u dhiibtaa dhahdid iiga aamus ipad-kan oo adiga nafsadaada aa u fiirsatid favorka adiga kuu fiicnaa ama qof saaxiiba uu kuu imaaday ama qof maaragta adiga aad rabtid inaa meel aadid aad tiraahda iga aamus oo cunugii oohintiisa aad kaysan weysay ma ogtaa cunugaas waxaa u dhintay ma ogtaa cunugaas inaa maskaxdiisa ku ciyaartay oo kori lahayd ma ogtaa futurekiisa inaa ka hadlaysay sababtoo ah adiga waalidkaa wuxuu kugu soo kariyey caqli wuxuu kugu soo kariyey nature uu kugu soo kariyey wuxuu kugu soo kariyey bannaan exercise inaad samaysid in caqligaaga maskaxdaada aad ka shaqaysid ciyaar lagugu talagalo oo ilmaha loogu talagalo inay sameeyaan waana ogahay maanta meesha ku jirno iyo xaaladda adduunka uu sii yahay inuu technologyga sii badanayo oo anaga qaladkeena uusa ahayn laakiin waxaa la rabaa inaan qiyaasteena qaadano oo educated isku sameyno nafsadeena oo dhahno okay maxaa soo kordhay la wadaag ilmihii adiga wax isbar midda kale aan rabo inaan idiin sheego annaga waalid ahaan meeshuu technologyga soo badanayo annagana inaan study sameyno oo barano qaybta soo kororto si ilmaheena monitor ugu sameyno aan u ogaano meeshii u dhib badan ama meeshay galaan hadda Snapchat Instagram waxyaalahaas oo dhan soo baxay waxa laga yaabaa waalidiinta badankooda sida loo isticmaalay inaysan ogeen sida ma aragtay qaabka ilmihii maxay maanta la soo kordheen historygooda inaad baari karin maxaa kugu kalifay adiga yaa faraha iska qaad cunugiya waxa tiraahdaa adiga lead me adiga i wad cunugii meeshuu gala ma ogid haddaa ogaatidna waxyaalo badan waxoogaa kaa nusqaamina because waana ku qasbannahay inaan ogaano inaan barano sababtoo ah waxaa ogaan kartaa cunugi meeshuu galay yuu la hadlay muxuu sameeyey waa mas-uuliyad adig ku saaran waay ma ahan inaa cunuga guriga ku haysatid oo aad tiraahdid oo aad dhahno okay cunugii iskuul ii aadu way imaaday wuu nabadu ii qabaa nabad kuuma qabo qolkiisuu galay wuxuu kuu furtay mobilkiisuu furtay markaa la hadashid gafuurku kuu taagay waxyaalaha damage uu gaarsiiyena waa xanaaq ciyaalka sababta wuxuu bedelaa horta kow attentionkuu bedelaa cunuga focus ma noqonayo maskaxdiisii asagana qaladka ma lahan wirekii loogu talagalay ma dhisman wuxuu ku noqonaa addiction sida drug dadka cuno ma aragtay scientists way soo ogaadeen 100% dadka daroogada cuno waxaa jiro wax soo daata chemicalkaasna waxaa la dhahaa dopaminekaas waa kan ilmaha maanta dhan ka dhigto inuu wax rabo cunuga u fiirso aa la hadashid waxayna soo gameka ciyaara aad tiraahday hebel usaas ku safir maxaa iga rabtaa ama hadal kugu soo tuuro maxaa ka keenay moodkiisii aa bedeshay maskaxdii marka muu isticmaalayo maskaxdiisii oo loogu talagalay wuxuu isticmaalayaa computerkaas wax u sheegayo gacantaas uu ku haayo attentionkaas uu isticmaalayo kaliya iskuulka taas gooni waa inay iskuulka wixiisa ma rabo inaan ka hadlo iyo waxbarashadooda waxaa ka muhiimsan cunugaas inaa maskaxdiisa akhlaaq iyo wax walba uu ka dhintay haddaa u deena ilmahaas sida hadda ay ku socdaan generationka right now ay ku socdaan ilmaha midda aan ku dhahayo attentionka horta ka dhumaayo xasuusta cunugaas xasuus fiican ma yeelanayo wuxuu yeelanayaa farxad inuusan lahaanin ilaa wax kale cunug walaalkiis xataa wax yar lama sheekaysan karo waalidaata haddaad tiraahd inta soo fariiso see tahay maanta maalintaadii ka warar ama aad tiraahdid maskaxdaada kuuma soo jeedo wuxuu u jeedaa laptopka ama mobilkaas u saaxiibkiisa ama qof uu kula hadlaayo ama text message badan ama hadlaan qoraal waa dadka waaweyn wax telefoon ku hadalka badan laakiin labadooda yaa dhib badan yaa danger ah dangerka waxaa kan ma hadlaysid waxaa isticmaalaysaa adiga lagu isticmaalaya waxa ku isticmaalaya wixii gacanta ku hayeen gacantaasuu ka shaqeynaya maskaxda marka wuxuu soo tuurayaa in uu faraxsan yahay markaa gacanta kaas ku haysid farxaddaasna waxaa keenay meesha maaragtay chemicalka oo maskaxdeena meesha soo deyso markuu qofka daroogada isticmaalo qofka maaragtay oo qamaarka sameeyaan gamblingka si u soo deyso kale ilmihii yaraa marka meeshaas looguma talagelin inay aad u soo daadato waxaa ku dhahay 20 sano 25 sano ilaa 30 dhahaan inuu marka dopaminekaas uu soo daato so dopaminekaas markuu soo daato maxaa dhacayo cunugi inuu raadiyo pleasure inuu maanta dhan rabo in ma aragtay wax farxad ka dhigo farxadaasna uu arko computerkaas ama wuxuu gacanta ku haysto
marka negative kiisa hal idinkugu soo taabanaa oo intaan ku qoray iyo maxaa ka qaban karnaa mise too late waa ilmaheena waa iskaga daynaa oo waxaan fiirinaa anaga selfish ahaan nafsadeena oo dhahno okay cunugii iskuul ii aadaa waa baari waxba ima dhaho gurigu imaadaa haya mobilkaaga ho qolkaaga iska aad ilma ma kursanaysa mise xayawaana kursanayna marka raalina ahaada ereygaas waxa uu la jeedaa cunug meesha kama soo baxaayo sababtoo ah waxa bedelmay moodkiisi attentionkiisa bedelmayo wax garashadiisa meesha wax garashada anaga ibn aadanka oo naga xoolaha naga dubay meeshaas waa meeshina waxa lagu dhahay wali meesha korin fire maaragta wirekeedii oo mylinkaas oo dhaxda ku jiro mylin shiidalda mylinkaasna waa adi wax oo wax cover gareenayo waa nervous systemki kii cover gareenayo ma korin hadduu soo korin cunugii marka muxuu sameynayaa wuxuu noqonaa wixii dhan attentionki wixii dhan ka dhumaayo hadhoodi wuxuu ku soo baxayaa wax garadka ka dhamaanayo wax garadka hadduu ka dhamaadana anagii animalka waxba isma dhaano cunugii marka maxaa u sameysay cuntaa ku korisay waxaa rabtaa cunugaas ilaahay horta mas-uuliyadu nooga dhigay anigii adiga inuu adduunkan markuu imaado oo aan bari lahayn wixii wanaagsan wixii xun aan u sheegi lahayn qalad ma laha ilmaha waxnana ma oga sababtoo ah waxaa ka tambatay wixii gacanta laga saaray anaga iska daa ilmihii iska daa anagii waa weyneen maantay waxaa nagu dhacay wax la dhaho anxiety cabsi ah cabsidaasna waxaa kalifay telefoonkaaga every 5 seconds ama every 5 minutes haddaadan fiirinin maskaxdaada ma joogto waxaa laga yaabaa inaad wadada socotid jeebkaada gacanta saas dhahdid oo waxaa u malaysay inuu vibration kuu sameeyo kuu jireeyay maxay taas kuu keenaysaa attentionkaagii wax kale uma jeedo wuxuu u jeedaa mobilki marka maxaa lagugu sameeyey inuu maskaxdaada corruption ku sameeyo oo adiga aad ka fikirtid asaga keliya haddaa istiraadid wax qabso oo noloshaada ama gurigii maanta dhan waa iska daba wadaa barkiinta madaxeedaa gelina habeenkii waa ku seexanay waalidiinta waxaa sameynaysaa every second waxaa sugaysaa qof message uu kuu soo diray ama Facebook ama Twitter gacanta ku haysaa anigi marka maskaxdeeni noo korsaneed oo already lagu dhahay waxaa leedahay midii fikirka ama wax ku dhalinaysay ilmihii aan lahayn marka maxaa keenay maxaa ku kalifnay maxaa se hortooda dhignay ma dareensa ma isdhaysaa dambiilata cunugaaga inaa usoo gudid iPad inaa usoo gudid atiraadid qaado maanta waxaa arkay babyyaal oo aad u yaryar markii ooyaan gacanta laga saaray baalkii iPad kala dhaahiya ku ciyaar cunugii markuu ku ciyaarana maxaa bilowday meeshii maskaxdiisii loogu talagalay oo ilaahay ugu talagalay oo kori lahayd ma korayso cunugii markuu weynaado ma la yaabaysaa marka inuu kugu soo afceliyo inuu kugu xanaaqo in aadan waxna aada ka arkin xanaaqaasna cunugii ma lahan meeshii wax garadkii loogu talagalaasan korin marka negatifyadeeda kow idinla wadaagaa waxa ilmaha ku dhaco saa idinkugu soo sheegay labada ugu daran oo biology ahaan dopaminekaas oo soo daataa hadduu soo daatana waa kan ugu daran wallaahi waa danger ciyaalka markay yar yihiin kaas hadduu ku bilowdo early inuu soo daato waa kan markay dadka waaweynaadaan oo ka yaraado oo ku dhaco sida Maxamed Ali Parkinson disease maaragtay kan jareeska oo maaragtay madaxa ama gacmaha xanuunadaas ku dhaco xanuunadaasna maxaa keeno waxaa dhamaaday neuronkaas dhamaaday markuu dhamaadana jareeskaas bilaabanayo ilmihii yaraa marka maxaa u malaysaa age-ka markay gaaraan oo loogu talagelin inuu dopaminkiisa soo daadiyo oo markasta pleasure inuu happy noqdo rabo happyga meesha uu ku noqon karan uu noqdo mobilkaas uu gacanta ku haysto in asxaabtiisa uu text ama Twitter ama Snapchat uu ku jiro ama Facebook hadda maanta waxa u bateen dadka waaweyn research markaan sameeyay ilmaha yararka ma galaan ilmaha yararka waxay galaan meesha more fun ah Facebook xoogaa dadka waaweyn entertaining kaliya ka dhigaa negative ugu horeeya ilmaha feelingkoodu bedelaa waa negative number 1 dareenkoodu bedelaa taas meel ku qorta dareenkooda dhan oo ka dhigaya ibn aadan ee wax ku fahmayeen ee ku dareemayeen oo ka dhimaa cunugana khalad ma lahan waxa qaladka iska leh waalidka oo u keenay laptop ama waxa u dhiibay okay feelingkooda markuu usaas ka noqdo maxaa cunuga ku dhacaayo waxa isbedelayo cunugi farxadiisa mood la dhahaa mood farxadiisa bedelmayso wax kale farxad kuma noqon karo hadda u sheekaysid si kasta aad dhaxdid ama aad tiraahdo okay walaalaad tihiin u fiirso walaalaha markay guriga imaadaan ani way igu dhacdaa ilmahayga waa ku arkay waana wax caadi adigana waa ku soo kortay inay iskhilaafkooda u badan yahay
laakiin markay isticmaalayaan isma rabaan inaa heshiisiisid ama ag fariistaan maskaxdooda feelinkooda waxa soo galaayo waxa kaliya hab iga dhigaayo mobilkan ama laptopkan feelinkooda marka hore halaabay kow waxaa isbedelaa midda labaad moodkoodii feelinka kadib moodki waxaa farxadii waxay noqonayaan emotionkooda inay noqdaan lack of emotion in adiga waalidka ahaa xaq ah ku leedahay hadaa la hadashid aad tiraahdid hooyo maanta banaanka aaday qandha ay haysaatin cunuga ama madaxa ay xanuunayo cunugaaga maxaa ka filanaysa inuu kuu dareemo emotion kuma lahaana kuma dareemayo wuxuusu kugu dareemeynin feeling emotionka maxaa ka horeeyo feelingka ka horeeyo kow qofka inuu wax dareemo waayo ani hadda waalidkayga aad dareemayo kow dareenka ay soo galay ka bacdin waxaan bilaabayaa inaan u naxariisto oo aan dib u fiiriyo marka cunugii hadduu kow technology feelingkiisa ka haleeyay maxaa ku soo xigay moodkiisa halaabay waxaa ku soo farxadiisa halaabay waxaa ku soo xigay inuu adig ku dareemin oo waalid ahaan ah one negative inta saddexdaas isku leh negative ka labaad oo ugu daran ilmaha dangerka ku rido in cunugi aadan ogeyn qofkuu la hadlaayay ma qof weynuu la hadlaayay ma qof yaruu la hadlaayay ma qof dadka oo xabsiga ku jiro sababta dadka xabsiga ku jiro mobillo way haystaan ma dadka drug dealerka ah oo droogada ka shaqeeyay la hadlaayeen xabad kama ogid cunugi ma oga laftigiisa waxa la iskaga soo dhigaa cunug asaga la eg oo da'diisa ah profile loo sameeysanaa cunugii waxa la soconaa intaasoo sano intaasoo maalin xabadna ma og adigana xabad ma ogid guriga joogta cunugin wuxuu ku leeyahay hooyo waxa la hadlaa qof asxaab ama ani cunugi ugu fiican aba ku sheegay kan kalena kuma sheegayo hooyada ugu fiican waxay ogaanaysaa mobilka inta ka qaado waxay leedahay okay maxaa sameeysaa ama gadaashiisa amartid historyga aad tagtid historyga markaa tagtid waxa ogaanaysaa inta qof uu la hadlay umana sheegaysa afkaaga ka xiranaysaa ka bacdina adigana goonidaada waxa sameynaysaa in research kaaga u sameeysid tan dangerka ugu daran oo saad naga dhigayso anagoo dhan cunuga maanta waxaa batay pedophile dadka ilmaha qabsado ama ilmaha kufsado ama ilmaha ma aragtay meel ama brainwash ku sameeyo u badan internetka maalin kastana waa aragteen waa laga qayliyaa midda kale ilmaha wuxuu ka dhigaa healthigooda caafimaadka cunuga markuu u barto u fiirso inuu mobilkaas gacanta ku hayo waxaa qabanaysa baahida caadiga ma ahan ama cuntada normalka oo cunaan ma ahan taa idiin soo sheegay dopaminkiisa pleasure badan raadinayso in cuntooyinka faatiga ah cuntooyinka oo nafsadooda u daran inay raadiyaan ilmaha xaggooda waay dhanka kalena haddii aan usoo dibdhigo haddii aan ka hadla dhanka waalidkana waalidiintana maantana waxay u bateen in okay cunto kariskeeda kama hadlaayay in uu technology kaliya ka hadlaaya yacni khasaaradu noo geystay inuu asaga easy kuu noqdo aad telefoonka garaacatid ilmaha cunto u dalabtid ama haddaa wadamadan joogtid waay the truth haddaan ka hadlo waxaa ka waxsanaysaa oo adiga xataa maskaxdaadii uu slow ka dhigay inaa cunto u karisid oo aad ka fikirtay aad tiraahdi maxaa cunto ka karinaa mobilkaa haystaa ama hebel banaankaa joogtaa cunto iisoo iibi cuntadiyaa keento cunto healthiya ma ahan cunugii maskaxdiisii marka exercise korkiisina ma sameynin bodygiisii wuxuu maanta dhan ku dhex jiray mobilkiisii ama laptopkii ama wixii cuntadiyaa siisay cuntadii maxay u dhintay caafimaadkiisii healthigiisii dhulkuu dhigtay كو waxaa sheegnay feelingki moodki inay farxad ka bedeshay inuu adigu ku dareemin oo waalidka ah xanuunka qabtid ama ma aragtay marmara xanuunsanaysa uu ku dareemin waana mid ugu daran sababtoo ah ilmahan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo siiyay in ilaahay aabudan in anagana na anfacaan sababtoo wax badan oo sameeyay ilaahayna uu ku sheegay quraanka oo ku dhahay ilma ma aragtay waalidkiina xaq ku caabudo وين يريهن ماشي اي كبران لهايين اني اذيكو كو دريمان تكنولوجي مركو محو سميي ماشي سميي ماشي الدرين كل هادو سميي ماشي الدرين كل هنا وماشان ugu horeyso oo maskaxdeena shaqeyso oo frontal lobe ka so negative ka obesity ga subhanallah marka waxa idin leeyahay taas pointiga aan tan ku gabagabeena oo negative ka ko in adiga baratid ha ka xishoonin haddaad hore u aqoonin sida loo isticmaalo technology isku day wax kasto cusub oo soo baxo saa ku baran lahayd sababtoo ah ma controli karno okay wixii haddii guriga agar uga reebtay iskuulka laga yaabo macallimiinta laftigoodii iskuulka lazy ah oo u dhiibayaan laptop ama systemka iskuulkaba ahba
and midda kale aan soo daraasay aan soo ogaaday ilmaha iskuulka oo lagu dhaho cunuga behavior problem uu leeyahay mara iskuulada usoo shaqeeya oo kuwa autism ama maaragta kuwa ilmaha behavior problem qabaan oo akhlaaqdoodu xun tahay cunugii wallahi waa sad haddaa ku jirtaan macallimiin oo meesha hadda dhegaysanayso oo iskuulada la shaqeeyo oo la dhaho ilmaha maaragta cunuga akhlaaqda xun qolaa la geeyaa qol markii la geeyo meesha ani jooga waa wadanka Yurubna waa isku mid haddaa Soomaaliya dhanka kala joogtaana iskaga keeraal ahaada cunuga laptop loo dhiibaa behavior problem qabtaa qolkaas gal waxa lagu siiyay hal saac maaragta waqtigaa ha ku soo qaado cunugii marka maxaa lagaaga dhigay adiga lagaa sii doqomeeyay laptop loo dhiibay xoogaa waxaa la dhaw waxa ka xirnay meelaha xun waa been waxaa loo furay meelo kale oo lagu dhahay game yar oo aad ku sameynaysid waxbarashadaada ama moodkaada bedelayso macallimiinta marka ayaga favor isu sameeyeen cunuga dhibkiisi cunuga meeshii uu tagay maskaxda muxuu gashanayaa markastoo aad xanaaqsan tahay markastoo aad qalad aad samaysid in laptop lagu dhiibo ama mobile lagu dhiibo ama meel fariisatid taasna waa midda ugu daran oo ilmaha maskaxda ka burburiso marka maxaa sameyn karnaa fikirka feelingka marayna ma iga raali ahaada iyo moodka waa ka soo hadlay midda kale ugu daran thinkingka fikirka ilmaha technology-ga wuu ka dhumiyaa cunuga ma fikiraayo ma noqonayo ilmo horma waxaa dhahnaa okay marmara waxaas dhahnaa okay ilmo marka adiga ma istiraahdaa aniga marka age-kaaga ahaa waxyaalo badan ka fikri jiray adi marka age-kaaga ahaa waxa soo gali jira oo macquul ah sida xataa test ka qaad ilmahaaga waxa ku ogaan kartaa in fikirkooda uu soo hor u ahayn su'aalaha aad weydiisid same marka adiga da'daas aad jirtay ama cunug aad u tag oo aan haysan scientists marka waxay sameeyeen study aan fiirinay 15 minute ilmo test ka qaadeen oo qaar aan loo dhiibin mobilka mana is u sheegin in test ka waxa lagu dhahay 10 kan diyaariya 15 minute haysataa cunugii waxa loogu dhijiyay GPR loogu dhijiyay laptopka si monitoring loogu sameeyo wuxuu sameyn lahaa maxaa soo baxay inay fureen 15 page oo hadda window ya 10 loogu talagalay ma ahaya last 5 minutes ay ku boobsiyeen ee 10 laga sugay marka muxuu ka qaaday computerkaas ama laptopkaas focus koodi meeshii ay fiirin lahaayeen ama wixii ay qabsan lahaayeen taasna wuxuu keenayaa thinking kan inuu bato waay muxuu ku bataa akhriska buuga muxuu ku bataa in social interaction ilmaana markay yirihiin waxyaalaha la rabo baby markay dhashaan u fiirso oo lagu dhahay cunuga la hadal cunuga u sheekay intay xataa hadal bilaabin in waalidka uu la hadlo waxa kamid ah in cunugaas uu barto sababtoo anaga social ka war hadii aadan cunugii uu thinkingkiisa marka muxuu ku korayaa social interactionki thinking inuu lahaado fikirki maxaa ka bi'iyay waxa ka bi'inaa computerka sababtoo computerki wuxuu sameynaa maskaxdu la communicate la sameynaa adigii ma ahan maskaxdu markuu communication la sameeyo wirekiya soo noqonayo cunugii wax walba easy waxay dhaheen study ilmaha ma aragtay gameka wiilasha oo badan gacantay gameka ka sameeyaan soo ma aha cunugaas waxa lagu leeyahay waxa fiican attentionkiis uu fiirinaa informationka laakiin attentionka ka haleysan informationka laakiin uu qaadan karaa oo gacantii ka wadaa laakiin marka test laga qaado attentionkiisa uu hoos u dhacsan yahay iyo waxbarashadiisa middles kale subhanallah iyo go'aan gaarida marka tiraado cunuga waxaan hooyo ma ku fiicna maantay waxaan ku dhaaya 2 maalin ha isticmaalin cunugii ku soo noqonaa go'aankiisi meesha korin lahayd ma sameysna marka walaalayaal waalidiin ahaan maxaa sameyn karnaa hadda naaw cunugaadana inuu addiction noqon karo waxa ku ogaan kartaa taas kan ku siinaa maanta samee marka guriga imaadaan haddii iskuul ku aadeen waxaa sameysaa waxaa tiraahdaa 5 ba u xisaabi u imo asoo laptop ama wax haysto waxaa tiraahdaa hebel ama hebla kaale hadduu wax yar uu soo fiirin waa uu ka sii jeesto waxa ogaataa cunugaada inuu addiction yahay cunugaada inuu dopamine-kiisa soo daatay cunugaaga in uu wire ku yahay maaragtay mobilkaas uu haysto wuxuuna wire ugu noqday asaga ma aha isma controlo technology-gaas controlo qaladkan cunugaas ma saarna because dambi muu gaarin dambiga yaala waalidiinta aniga adiga iskala dambigaas
سو حق الله كما بحسن حق الدنيا عنق وادي اللي مسكحديسي صوبته الدنيا وحا وحكوتها إنا بفكري كرتي فكر كمركو وحكا جارسيو وحكا لو وحكا جارسيا imagination كأسو شي جاي إن قفك ابن آذن كأوليه هاي فكرة imagine ومسكحديسة كسامين كرو imagine كيو دم عنقي وحو أركايا مسكحديسة أري مرة بإنا لو أقلد استبدا ليه لها مسكحديسة وحي نقونيسا دبال عمل إن إيسو هور مرينين إن أوسن وح فكرة دن أوسن لهن وأذيك والد كمر ما يستر هذا frustrated إن أنا قطع عنقي في رسد أترى وروح أنا كنا محا أفهمي لا ذا فهنكي محاكا قاضي وحكا قاضي وحي وقعنت كويستي تكنولوجيا كقاضي أذيك والد هان وإسريحي سو حسلاد هاي عنقي دأذا سجرة دأذان إنه فكر كان لهذا واي عنقي قالت كمالهن وحقلت إسكالة وحي قعنتا أقلني يلعكتا أو سوقن وحيالهاس أسحن عنقا وحكو دامو والله وين أجيهن قف كستا هذا كله لا يأج أنيجا أج وحكو دام إن وحكو حناقو ذو وقت بدل ما قعدنا قياسي وأوجا إن influence تعددك كوهريرسن إن دتك أول جوجو وبديهن مدك لا أنا وحس لي جري نفس الأهان ما دام ودن كان أن جوجو الماء أكو دلي الماء أنت درن الماء أنت ما عرفت عنتو موبايلك كوبدن تكنولوجيا أفريكان تجي والله وحسوق بصد هذا الك يقول لك نفط يقول لك تي وحس ده هاي مالها مسلمين تكوبدن واي بحوجها وحي أوجيهن المي وكقاضي لاب وحي مسينايان أو وما أقلا وحي إسلين عنقان ما عرفتي قرآن وبرنا ما أحن والدينتي وحا أركيسا إني اسكوغو فانان عنق بعنق كله عنقيga iPad-ka noocaasa usoo iibi عنقيga maanta waxa usoo gaday kaasa soo baxay عنقaaga suna usoo gaday sun maskaxda ka sumayso uu soo hormar ku mari karin maskaxdana sunta maskaxda daran sunta jirka dhakhtarka geen kartaa daawa siin kartaa daawada ka biinay laakiin sunta gudaha oo maskaxda ka timaado mida daaweyn kartid ma ahan daawadeedu only waxay tahay ina عنقaaga rehab samaysid in timetable ah samaysid in adii عنقaaga maanta wixii laga bilaabo ولا فريستي أترادي لوك 15 minute أنكو أقولها قياس أني أنا حق له أني أنا كنترول أوالد هان إن إدي ستيد 15 minute كان إن التلفون كاي هي ستيد وحي كدم بي أني قعدت إجسو صار هبينكي أنا قعدت كوه سنايو المها تين إيج كان هايسدين عقلية ليهين المها 14 15 16 دتكو حركة 17 وأرك إنه عنق عقلي ليه قعدت وقدي بايو وده لا موبايلك على العرمة كفير سنايا سررت مدحد وكسحدا وحاقوا جاتا عنقاس إنه سكو جيفين عنقاس وحاقوا جاتا إنه إس كنترولين sababtoo ah dopamine-ka soo daadana dopamine-kana pleasure badan uu rabaa in maanta dhan wax raadiyo wax ka maqan wixii ka maqnaan cunigi markuu raadiyo isma control karo wuxuu soo qaadaa maanta wuxuu fiirinaya qof asxaab ah ama qof soo jeedo oo hadal ama wax soo dhahay taasna haday dhacdo cunugaaga danger weyn ku jira cunugaaga akhlaaqdiisa kaliya ma ahan garashadiisa ka haleysay marka waxa ku dhihi lahaa ha u naxariisanin naxariista cunuga asiinaysid ma ahan ina cunto siisid in aad dhar u iibisid in aad laptop ama wax u saartid jaceelka number 1 waxay tahay inaad tiraahdid hooyo ama aaba ilmaha ku dhaadi soo fariiso jaceelka ani aan ku qaba ka weyn waxaan gacanta ku haysid adigaana og danger ku leeyahay waalid ahaan cunugi ma oga hadduu xataa ku xanaaqo hadii uu wax ku sameeyo adiga dul qaado isku day ina waalid fiican noqotid oo aad ilmihii la fariisid aad tiraahdo look ilaahina aad tala saaratid markastana duceyso ducada muhiim waaye wax walba aad sameynaysid oo ilmaha ku saabsan oo wax wanaagsan ilaahina subxaanahu wa ta'ala wuu og yahay in adduunka ma aragtay uu adduunku ibtilaa yahay quraanka noogu sheegay in maalinta ka dambeys uu sii dhib bandaan doono wuxuu noo sheegay intaasoo sano ka hor 100 sano ka hor uu noo sheegay quraanka noogu sheegay in ibtilaaga adduunka ugu weyn uu yahay in generation ka dambeey uu sii dhib badan yahay in anaga aan sii qalab qaadano oo aan dhahno okay maanta maxaa soo baxay kan bari wax kasta ka sii darna sii bax maanta waxa ka hadlaynaa laptop iyo mobile ay haystaan bari wax laga yaabo robot oo control ay ayaga dhan inta u leexinayo inuu soo baxo marka maxaa see ugu qaadan kartaa hub waa ina ka sii tabaabushaysanno ilmihiina aad bartid aad tiraahdid aniga aa ku xukumo allah ka sukow ana adduunka ku keenay wayna adag tahay
cunuga hadduu hore usoo samayn jiray oo aad tahay waalidiinta oo ilmaha sariirta inay ku seexdaan u ogolaaday aniga isma faaninayo wallaahi allah subxaana watacaala og waa dadaalaa waa arkaa dhibkay leeyihiin markay iga diidaan waa xanaaqaa waxaa irahdaa okay haddana isku day strategy kale laakiin waxaa ku guulaystay inaana habeen u ogolaanin in mobile aysan kor la aadin in iskuulka markay ka imaadaan aan dhaho mobilkayga gacanta iga soo saar heer waxay ii gaareen dhahaan hooyo heblo iyo hebel hooyadood kama qaado waay adiga telefoonka nooga qaadaa sababtoo ilmihii influence ay arkayaan iskuulkii ilmihii isla sheekaysanayaan heblo adiga mobilka hooyada ma ku ogolaataa haa mobilkayga waa haystaa qolkayga la galaa waana isku seemda cunugii markuu kuu imaado marka challengegaas waa arki doontiin hadda bilaawdid challengegaas ha u nixin cunuga fiiri waxaa ogaataa dangerka u keenaa cunug inaad guriga ku korsatid maskax aan lahayn maxaa kaaga daran cunug adi aan ku dareemin sababta hooyaa tahay waa u dhibtootay wadamadaa joogtid cuntaa siisay waa korisay xanuunaa ku haayo qof maada helin ku caawiyo maxaa isleedahay cunugaana beri ku anfacaadi doonaa cunugaana beri wax itari doono xanuunkaagiyaa ilaawday dhibaatadaada intaa uurka leedaha ilaawday niyadaada waxaa gashatay beri markay ii weynaadana wax itarayaan laakiin cunug aa kusoo korisay oo technology gacanta u saartay oo tiraada technologygan hoo gacanta ku hayso hooyo lacagtii dhan aa ku bixisay beri maxaa ka sugay marka ina banaan cid la soo istaagtid oo cunuga aa fiirsid aad tiraahdid cunugayga waa iga dhumay cunugayga waa iga qaldam ilaahay subxaana watacaala hanaga najiyo inta ay ilmaha ka halaabeen ilaahay usoo hanuuniyo kuwa anaga noo joogan ilaahay hanoo hanuuniyo ilaahayna wadada saxsan ha ku toosiyo sababtoo ah wallaahi wax walba oo ku dhaco anaga baart weyn ka ciyaarnay ilmahaas wuxuu ku dhaco waxa uga ciyaarna waxay yihiin caqligoodii muu korin meesha caqliga waaye caqliga maadaama uu sokorin wirekii oo informationka gudbin lahaa adiga qof weynaa tahay wirekaaga wuu ku dhisan yahay dareenaa leedahay wuu kuu soo celina wuxuu ku leeyahay waxaan waa qaldan yahay laakiin cunugaas waxaan gacanta loo saaray oo loo soo ballaangareeyey wirekaas ku wada xiran meesha ay taabteen u furmayso waxay furayaan inta u fiirsa markay ku jiraan maskaxdooda haddaa inta maraysa ma ogid waxay halkaasi ku maqan yihiin ayaga kelina ma ahan adinkana waa tiin anigana waa ahay dadkeena waa weyn waxaa u nahay anigii haddii aan ma aragtay ilmahana waxay u badan tahay wallaahi hadday waalidka arkaan waalid aan ku xirnayn ma aragtay mediaha oo aan markasta gacanta ku haysan dadkiina badanaa su-aalaha arkay la isoo weydiiya oo la dhahay ma adigaba tv ma fiirsatid miya adigaba ma kanaysid yes tv guriga waa soo dhiga wuu yaalaa markii maaragtay qofka kale oo guriga kula nool uu tv-ga rabo inuu ka fiirsado laakiin adiga shaqsi ahaan go-aan waa gaari kartaa hadduu guriga aabihii kula nool yahay uu rabo inuu newska fiirsado nimankana iga raali ahaada waxaa u badan tihiin newska inay jecel yihiin iyo sportska inay fiirsadaan laakiin adna waxaa ogaataa newskaas markaad daartid oo cunugaaga fadhiga kuusoo gala asagana fadhiyo uu indhihiisi saaro adduunka inuu wax qaldan u arkaayo sababtoo ah mediahan iyo waxaan waxa lagu keenay in meesha xun lagaa tusiyo meesha fiican lagaa tusin inuu qof meeshaas kuusoo fadhiyo suud kuusoo xirto waxyaalihii xumaa adduunka ka dhacay adduunka oo dhan uu kuusoo aruuriyo uu ku dha waxaana dhacay ilmihiina u ogow observe sameeyaan markay arkaan aabihii ama hooyadii oo addiction ku ah maaragtay tv-gaas indhihii ku haayo ayagana waxay noqonayaan in ay waxyaalihii kala fiirsadaan marka hala yaabin adiga isa sax nafsadaada waxaa isku daydaa inaad iska joojisid oo aad tv-gaas aad iska yaraysid markay ku imaadaan xitaa respect sameyn respectiga waxaabaa inaad tv-gaas ka damisid ee aad dhahdid hooyo ama aabo camon inta fariiso maxaa rabtaa marka exampleka ugu horeeya horta annaga inaan isa saxno waay ilmaha intaana saxin midda kalena ogow ku fiiri maantay attentionkooda fiiri u xisaabi 5 second ama 30 second cunuga hebel cuntadii diyaar kaale aad tiraadid uu ku sii jeedo waxa ogaataa cunugaaga inuu danger u yahay addictionka uu ku noqday addictionka markuu cunuga ku noqdana waa meesha ugu daran subxaanallah meesha ugu daran oo aad celin karin oo hadhowdina bari inaad ka shalaysid ee khatar u tahay marka walaalayaal aniga waxaa idin dhihi lahaa kow waalid ahaan ilmaheena feelinkooda ilaalino wixii maskaxdooda kori lahayd ogaana in aan xooga saarno wixii technology kasta oo soo baxo waxaa qaadatiin kalaasiya jiro raadiya internetka ka raadi waxa ka raadisa adigana laakiin inaad nafsadaada isxakameyn kartid waaye haddii waalid aad tahay oo asagiiba kusoo jeedo waxyaalo xun habeenkii kusoo jeedo youtube kusoo jeedo riwaayad kusoo jeedo waxaa micno lahayn kusoo jeedo wax asaga maskaxdiisii asaga laftigiisaba dopaminekiisa soo daadanaya haddaad tahay cunug wax ma ka qaban kartid kow nafsadaada geli nafsadaada ka bilaaw
nafsadaada waxaad tiraahdaa wixii hore u dhaceen yes wuu dhacay wax walbana waa inii sheegay wax too late ah ma jiro adduunka kulli ibni aadana ma aragtay way gafaan xadiiska ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu dhahay suubanaheena qof kastoo ibni aadana khataa uu ka dhacaa laakiin maxaa ugu fiican markaa isqabanno oo maanta aan wax isu sheegno oo adiga ah intaas soo qof walaalka u tagta tiraahdo look ilmaheena maxaa ka qaban karnaa community ahaan aan isu imaano kaale hooyooyinka maanta aan ka sheekaysano meeshii aan waqti ku dhumin lahayn heblo maxaa soo gadatay ama hebel intee wax gaartay ama hebelow meelaha la iskugu imaado loo dhaho okay businesska iyo wixii ma ka wada hadasheen ilmaheena maxaa u fiican ilmaheena maantay meesha ku noolna beecada ku noolnahay waxyaalo badan ku soo kordho hal qof kaliya wax ma qabto laakiin markii tugada la imaado oo aad dhahdeen okay kaale maantay waa axad ama kan waxaan rabnaa inaan ka hadalno ilmaheena dhibaatadii leeyihiin ani dad ajnabi ah arkay oo muslimiin ah wallahi waxaan dhahay maasha Allah ilaahay u siyaadiyo weegi ama laba weeg meeting ay yeeshaan xaafad kasto isu dhow meeting ay yeeshaan waxay dhaan maanta asu imaano okay maxaa ilmaheena ku soo kordhay maxaa ka qaban karnaa Pakistaniga u badan way ka hadlaan waxyaalaha maaragtay ilmahooda oo qaladka u keenay sidoo kale ilmahooda markay ka arkaan akhlaaqdooda inay dhunto focus ka siiyaan laakiin anaga ma siin cunigi markuu tirada ka baxo oo faraha ka qaban weysa waxa leedahay wadankiyan geena ama cunigi iga halaabay laakiin waxa soo dhan waxa laga yaabaa cunuga wadanka aad geenaysid inuu danger u siiyahay laakiin meesha ku haysid hadii adiga ma aragtay qof aad noqotid strategic isticmaalayo cunuga best friend la noqdo wax walba ka ogaan kartaa best friend oo gacanta ku dhigo oo dhahdid si ka waran adi maxaa gashaa password xataa waxa samaysataa Instagram haduu cunugaaga leeyahay ama Snapchat adigana account samayso waxa tiraahdaa hadii uu ku diiday ilmaha mar qaar waxay sameeyaan in ay block ka dhigaan way ku block gareynayaan si aadan u ogaanin waa ilmaha waaweyn ka hadla teenage-ka ah waxa tiraahdaa no iga dhig aniga waalidkaaga ahay iga dhig qof follow ku noqdo taasna maybe inay ku caawiso sababtoo ah xoogaa waxay ka yareynaysaa cunugii xishoona waxa ogaanaysaa asxaabtiisa gal followgiisa fiiri follow badan markuu ku jiro mid kasta profile-kiisa fiiri adiga waajib kugu tahay waajib weyn kugu tahay sababtoo aakhiro waa lagu weydiinaa cunugii waxaan muusa haysan leen adaa gacanta u saaray okay gacantii u saartay waxa ka xoog badan dadkii iyo meesha ku dhex jirtay laakiin follow up profile-ka gal wuxuu yahay ogow meesha galaan ogow wixii markaa ogaatid xoogaha waxaa noqonaysaa waalid waqti siinay cunugii oo ogaanay cunugii waxa laga yaabaa in ilaahay ku soo hanuuni uu dhaho okay hooyada Snapchat leeda ama Instagram file-kayga ku jirta xoogaa xishooda galaayo in uu iska ilaaliyo dadka xunxun oo adigana tartiib maalinka dambana waxa sameyn kartaa si tartiib ah tiraadid waxa ma ku fiicna oo tartiib uga qaadid waa ilmaha hada hore ugu xismo waay raalli ahaadana hada hadalka aan sii badiyay laakiin subjectigan waa subject aan u baahanahay waalidiinta waxaana idinku waanin lahaa hada community ama meel degan aatiin dad Soomaali isu dhow waqti samaysta ka hadla arintan oo ah ilmaheena maxaa ka qaban karnaa ilmaheena maxaa u sameyn karnaa ilmaheena maanta waxaan wax fiican u yahay oo nafsadoodii u anfacayo mise wax anaga nagu soo geysana hadii kale wuxuu kugu noqonaa cadow aad korsanaysid okay daacada ka hadlo wallahi sababtoo ah robot guri ku jooga korsanaysa oo wixii technology-ga iyo wixii dhana gacanta inta ay ku haystaan cunugina qalad ma lahan waa ilmo innocent ah adduunkan soo baxay oo laakiin mas'uuliyadooda aad dayacday مسؤوليتooda ma ina cunto siino oo korino dhar u gadno oo aad dhahan okay cunugeygu wuu fiican yahay cunugeyga wuxuu keenay grade A grade B grade kaas ah ku xisaabtantid grade A grade B waxa ah cunugaaga inuu emotionkiisa ku fiican yahay feelingkiisa attentionkiisa ku fiican yahay garashadiisa ay ku tahay garasho fiican taasa number 1 wax lagu duceysta ah ma ahan ina ku duceysata tiraadid hebel cunugeyga intaas uu gaaray hebel cunugeyga intaas uu gaaray marka walaalayaalow aan isqabano waalid ahaan nafsadeyda iyo nafsadiinaba sababtoo aniga waalida ahay waa ogahay dib ku leeyahay waa ogahay ma aragtay markay mobilada haystaan sometimes waxaan sameeyaa waxa u sheegay hadda xitaa way maqlayaan waxaan dhahaa experiment aan sameyn rabo ama tijaabo 2 week ama week telefoonka isiiyo haddaan ku dhaho week marka hore way xanaaqayaan labada maalin ugu horeyso maalinta saddexaad buugii soo qaadanaya akhrisanaya waxay dhaan hooyo inta ifiiraan waxay dhaan wallahi actually ma u baahni baalki mobile maskaxdayda degtay maxaan u sameynaysaa in
ayaga ee noqdaan qof maskaxdii fahankii waxay wax ku fahantaa markaysan laptopkaas ama waxaas ay haysan fahankeedii badanaya sababtoo ah haddii mar aa ogaatid in fahankeena frontal lobe-kaas uu yahay meesha multitask wax walba ah ka samayn karno meesha garashadeena ay sii korayso ilmihii uma korsana so cunugii markaa taas ka qaadid wayarkii is qabana wayarkii isku imaanayo markuu wayarkii isku imaadana waxay bilaabanayso in garashadiisii cunugii uu dego calm uu noqdo ku fiiri experimentigaas adiga sameeya hadda kula hadlaayo cunugaada waxaa tiraahdaa waxaan rabaa inaa 1 week kaa qaado ha xanaaqo dhulkaa isla dhaco wax kasta ha sameeya ha u jixin waxaa tiraahdaa okay muhiimka waxaa ah inaa ogaadaan rabaa xaaladaada see noqon doonta ilmo waa haddaa saas ku sirtay way kaaga yeelayaan laakiin kuwa waaweyn hadday yihiin oo isleedaa waxaa ka qaban kara ma lahan habeenkii isku day inaadan siinin cunugaada caafimaadkiisa kuma jiro inaa u ogolaatid xataa under 18 ama 18 uu kuu gaara ha siinin habeen sababtoo ah habeenkii hurda la-aan in text message ay ku mashquulaan adiga weynaa aaba barkinta haddaa gashid maanta in soo qaadanaysid oo fiirinaysid marka walaalayaalow ilaahay aan u laabano aan isku dayno wixii technology-ga nagu cusub saa anaga nafsadeena u baran lahayn waalidiin ahaan hana ka xishoonin haddii aada hore u aqoonin hadda ka bilow maantay waxaa samaysataa waxyaalo waxaa jira tutorial la jiro oo ku baraayo luuqadda ma og in lagu helo af soomaali ah asagoo waxaa ku jira kuu sharaxaayo ama koorsooyin qaado oo ku baraayo asaga qaabkii markaa baratid cunugaaga saa u dabagashid meeshuu galaayo iyo meeshuu ka baxayo ogaatid marka ma rabo inaa idinku sii dheeraado waa mahadsantihiin ilaahayna subxaana watacaala hanoo gargaaro ayagana ilaahay hanoo soo hanuuniyo laakiin waa inaan foojignaano day marba mar ka dambeyso inay soo badanaa ogow hala yaabin hadda waxaa haysano hadda maxay dhahaan kan oo gameka oo waxay dhahaan magacay ku sheegaan oo kan trumbleka ordaayo gamekaas xataa ay ku sheegaan ordaayo cunugii wuxuu ka dhigaa inuusan ciyaar kale uusan helin ilmahana waxay ku koraan social maaragta markaan sameynayo developmental psychology number 1 waxa ay social interaction in maaragta ay wadaagsadaan hadal iyo maxay ku koraan waxaasay ku korayaan laakiin cunuga hadduu ku aamusnaado maaragta mobilkaas au dhiibtid markuu yaryaho kale hadda iska bada waxaa 2 months ilmo jiro ah waxaa loo dhiibayaa bahalkii ama 3 months waxaa loo dhiibaa ipad aabba hooy iga aamuso dhab waa siis gacantuu saartay cunugii wuxuu la qabsanaya ilan ilmaha maskaxdooda way furantaa markay yirihiin wax walbay bartaan wax walba way la qabsadaan hadhow waxaa ku dhaca alla cunugeyga walaahi wuxuu tagi karaa youtube waa ku faanaysaa faan ma aha waxaa leedahay cunugeygi ma ogtaa baaswarkeyga xataa wuu taaban karaa cunugeyga youtube-ka asaa taaban karo cunugii sanad ka yar taas wax lagu faana ma aha khasaarada adduunka waaye inaad naxdid aad tirahdid laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah maxaan sameeyey cunugeygan waxaan baray wax qaldan way jiraan waalidiin saas ah in case cunugaaga inta u fiirisid aad tiraahdo waxaan wax qaldan waaye marka waxaan dhihi lahaa ilmaha markay yaryihiin ha u ogolaanina laptopka ha u ogolaanin waxaasoo dhan haddaa u ogolaatid ina garashadeeda kaa dhumaayo waalidnimadaadi xuquuqdeedina ay kugu ciyaarayaan xuquuqda waalidnimada waxaa soo saarto cunuga marka adiga aad waqti isla qaadatiin marka hadda maanta fiiri mid kale kusoo gabagabeena oo anaga waalidiinta ah relationshipka husband oo aabba iyo hooyo ka dhaxeeyo ilmahana subxaanallah waxaa loo ilaalo aan loo dirsan waayo sababtoo anaga ee na fiirsanayaan shalay marka caloosha ku wada ay soo baxeen qofkii kalsoonida tusiye oo kor u qaada waa adiga number 1 oo markay dhasheen ay caloosha ka soo baxeen qofkii ugu horeeyeen oo hadal ay ka barteen waa adiga qofkii ugu horeeyay ku daydaan haddii cunuga ama aad tiraadid waxaa laga yaabaa family kasta waxay leeyihiin qaab hadal ama qaab ma aragtay ay u dhaqmaan ani marmar waan fiiriyaa sababta family kasta gooni leeyihiin wax hadal u gooni ah ama ma aragtay dhaqan u gooni ah dhaqankii marka cunugii adigu kaa fiirsanaa dhaqankii language-ku barana hadalkaaga sida u hadlaysid qaabka aad ma aragtay aad marmar u xanaaqdid ama aad ku faraxdid marka waxaa ogaataa cunugaaga inuu adiga toosh ku haayo uu ku fiirinayo waxaa samaysid haddaad tahay waalid iyo aabbo ama iyo hooyo oo qol ku kala xiran yaa qol ku kala xiran oo aabbii ama fadhiga fariisto oo hooyadan xagga tagto oo the mobilekaas uu u noqdo husband or wife the truth oo u noqdo qof saaxiib companion oo la sheekaysto maxaa meeshaas dhuma xiriirkaas hadduu dhuman cunugaas wuxuu ku koraya wuxuu u arkayaa waalidiintiyaa sii kala jeedo waxay kusii kala jeedaanna wax kale ma ahan waa kaas mobilkaas aa gacanta ku haysid waaye
oo idinku kala waxeenayo marka waalidiintana waxaa idin dhihi lahaa ilaahay u laabta isku day in aad waqti aad nafsadiina isisiisiin oo adinka aysan saxdin relationshipka maraan ka hadli doonaa hadduu ilaahay idmo sababtoo ah waa midka ugu muhiimsan ugu qaalisan haddaa xataa hooyo keli aad tahay haddaa aabbo keli tahay muhiim waxaa cunugaaga inaad tustid adiga inaad wanaaga tustid inaad tustid inaadan waxaan u baahnayn intaana asaga ka bilaabin adiga iska bilow in aad ka fiirsatid maanta munaafacadeed waxa u dhahay xumaantiisan sheega munaafacadiisa ma sheegayo sababtoo ah munaafacaad way ku jirtaa waalidkaaga ama waxa ka wactaa ama waxa laga yaabaa in aad iskuul ama wax ka wacanaysid munaafacadiisana haddii study lagu sameeyey ma badna sababtoo ah computer waaye adigana maskaxdaada yaa computer ka weyn oo wax walba kuu qabanayso okay dhaqaale ahaan u dheh dhaqaale ahaan wax ii soo gad ama wax ii sameey ama aad ku shaqaysatid laakiin limit sameey limitka wuxuu yahay gurigaaga markaa soo gashid oo lagaa rabo inaa ilmahaaga ama wax u qabatid iga raali ahaada in aadan ma aragtay aada isticmaalin aad tirahdid rule aa yeelatid sida ruleka ma aragta guriga ku qoro derbiga wax guriga markaan soo galo waqtiyada ilmahayga waqtiga siinaayo mobilkayga halkaasuu saaran yahay halkaas iska dhig ciyaalkaaga waqti sii arag ku fiiri ilaa 2 week haddaa saa samaysid gurigaas wuxuu noqonaa guri degan guri akhlaaq leh guri ilmihii ee waalidka fiirsadaan go-aankaas hadda gaar right now aad la hadlaayo please ilaahay u laabta go-aankaas gaar anigana go-aankaas waa ku dhaqaaqaa sababtoo ah inkastoo alxamdulillah waxaan ka isticmaalaa waxyaalaha oo aniga ii fiican oo ama waxaan ka galayo laakiin still waxaan rabaa inaan iska jaro qaladaadka aan sameeyo markii ay iskuulka ka imaadaan ina aan message ka jawaabo oo anu gacanta ku haystay arkaan wayna dhacdaa anu gacanta ku haystay arkaan taasna waa qalad inaan sameeyo inaan ka bilaabo nafsadeyda markay imaadaan oo mobilka halkaas dhigo oo waqti aad samaysatid aad tiraahdo waqtiga ilmahayga waa mobile ma taabanay aabba hadaa tahayna guriga markaa soo gashay aad tiraahdo waqtiga xaaskayga waqtiga ciyaalkayga aan waqtiga la qaadan lahaa way aad dhigtid hooyo hadaa tahayna the same way adigana aad samaysid guriga arag guriga wuxuu noqonaa guri nabad ah guriga wuxuu noqonaa degan haddii kale waxaa noqonaysaa maskax ku xiran halkaas inay farxadeeda ka hesho aysan farxadda keli markaa isu imaataan marka waa mahadsantihiin ahab ina aad maaragtay wax oo kulligeen nabad anfac waan inay noqotay aad u mahadsantihiin insha Allah casharka bari wuu noo socon doonaa okay looma buuxa dadkaas is okay bintu abdullah inta ma aragtay oo qawaanadeeda qaadatay ilaahay ku anfaco ilaahayna naga dhiga ma aragtay dad ku dhaqmo sababtoo ah meesha meelaha ku noolnahay ama Afrika ku noolow ama Soomaaliya ama wadamadan ku noolow waa adigana dhibku ku gaarsiisan yahay oo ay computerka iyo ay leeyihiin okay message isoo dir qalbiga samaraya message isoo diri kartaa messagekaas insha Allah kaaga soo jawaab haduu ilaahay idmo okay waaye marka aw su'aalihi marka dib aan u fiiriyo okay waa sugaya Asiya weli dhinacay ima tusinin su'aalaha wa iyaaki habboon wa iyaaki amiin dhammaanteen amiin su'aalaan sugaa hadda wax yar waa sugi karaa hadda soo qoraysiin qolka mida hooyo waa adiga qofka ina akhriyo ma ah waxyaalaha qaldan sorry fiiri asxaan ii sameeya wixii su'aal asxaan ii soo qor sababtoo ah screenkan uu dhaqdhaqaaqaya anigana ma aragtay saan ma ku jawaabi kari waa soo diyaariyay inaan jawaabo ina siiyo oo arrintan ku saabsan siiba xagga dangerka uu leeyahay waxyaalaha maskaxda uu gaarsiiyo qaladaadka uu keeno akhlaaqda ilmaha uu nooc uga dhumiyo garashadu ilmaha ka yareeyo hadaa waxaas oo su'aalo ah qabtid message igu soo dir insha Allah ana kaaga soo jawaabi doono cartoonka wow kaas waa subject gooni waay cartoonka ilmaha fiirsado ilaaliya sababtoo akhlaaqda number 1 waa cartoonkaas waxa ay soo galiyaan waxa u maleynaysaa cunugaada inuu cartoon fiirsanayo oo waxba ahayn laakiin
ما فيرسه ما لا فريستي وحي هذا الذي كو هادلاين ما فيرسه إيقابكي كو هادلان إيقابكي ودقمان كارتون كاس waa number 1 والله mid ka bedela ilmaha iyo kaartoonka kelima aan buugaagta iskuulka ka soo qaataan cunugaaga inaad daba gashid waa fiirisid maalin buug oo roll dahal uu qoray oo ciyaalka iskuulada laga soo siiyo London waa dadka joogo ama luqadaha kala hadii la idinku siiyo waa akhriyay luqadiisa subhanallah wallahi waxa ku qoran ma maleyn kartid luqada waxa ku qoran aad u dhib badan oo ilmihiina marka aragtid cunugii uu la qabsanayo waxa ku jiro kan horrid Henry waalidiin badan hadii way ogyihiin cunug waxa way kaartoonkii ku soo gelin cunugii in akhlaaqdiisa laga haleeyo cunugii inuu mar kasto wax yar hada u dirto uu ku dhibsado ama ma sameyn kari ama sameyn kari ama walaalahay uu la dagaalo taasna waxa keenta kaartoonku fiirsado kaartoonka waa isku mid waa media maaragtay mobilka kaartoonka ka sii dangersan kaartoonka sawir waay sawirka subconscious keenana sawirkaas uu galaa cunuga sawirkii uu gelinaya ka bacdina akhlaaqdiisu ku dhumina ilmaha u fiirso guri ku joogo markay yaryarihiin wax ay ka fiirsadaan ku dhaqaaqa sida exactly markay dhashaan oo ay soo baxaan waa imitation development ugu horeeya ilmaha ay sameeyaan korniinka ugu horeeyo wax araga waxa adiga inuu kugu dayashadii waay meesha dayashadii yaa nool haddii aa u daartid ka waran kaartoonkii ku dayanaya sidii kaartoonku u dhaqmaa hadaladii kaartoonkii u dhahaa akhlaaqdii inuu caaytamo in markaa wax tiraada idaa ama qaabkii usoo dhigaa because anaga ilmaheen ina ilmo islaam ku korino waaye in ay ogaadaan inuu waalidka kusoo warcelinin taas anaga xaquuqdeena walaakiin ilmahan kaartoonka lagu tusiyey waxaa lagu dhaha free will leeyihiin cunugan waa freedom wuxuu doon dhigi karaa wuxuu doon sameyn karaa laakiin adigina waalid ahaan xuquuqdeedii waxa istiraad cunugay kaartoon u fiirsanaya kaartoonka uu fiirsanaya kala fiiri way jiraan kaartoono fiican laakiin badankooda social media kaartoonka keenaan kaartoon fiican ma ahan su'aal fiican ay weydiisay waana ku mahadsan tahay khayr Allah idin siiyo insha Allah wixii kale oo message ii soo qora waa degdegsana inaan baxa islamic cartoon ma sha Allah islamic cartoon number 1 waa helaysaa website badana jiro oo cunugaagana kaaga faa'iidayo oo akhlaaqdana ku baranayo oo hadalka xataa wax walba maskaxdiisana ugu furmayso oo adigana aakhiradaada adduunka ku fiican laakiin haddii aa waqti ku dhimisay sababtoo ah maanta ma dhihi kartid qaladka ma saari kartid ma dhihi kartid aniga ma qaladkayga technology-ga qalad kale aniga qaladkayga ma ahan wadanka society-ga ku noolahay adiga qaladka iskale iyo aniga qaladka waxa ku leenahay ilmahan garasho ma lahan waxnana may sameyn adiga u soo qaad u dhiga meesha cid ku diidaysa malaha hadaa xataa isdhaadid wadamada aan ku noolahay cunugii habi ma noqdo truth hadaa ka hadla waaya runta ina baxaa rabi laakiin hadal aan ku soo celinayo waa aan ila fahmi doontiin dadka ku nool western society in ay istiraahdid cunugii ama social worker ay soo dhaxgeli karo ama iskuulka farxadooda i weydiin karo ha isku qaldin farxadda nadaafada cunuga waa inaad nadaafadiisa saxdid cunuga hooyo ahaan inaad yani waxba ku sameynin taas kaliya ah number 1 ma ahan in aad ku faantid cunugayga wuxuu rabaa u sameeyaa haddii kale haddii aan diido oo iskuullada ma aragtay waxay arki doonaan waalid controlling ah ma tihid waalid jacayl u muujinaya tahay macallimiintaas iyo dadkaas arkaysid ilmahooda kulama dhaqmaan sidaas oo kale kuwa sameeyana waa ilmahooda kuwa wadada dariiqa ku dhumay xaqna waa u leedahay cunugaaga hadduu xataa report kaa geeyo iskuulka uu dhaho waalidkayga ay diiday mobilka habi ma ihi waxaa ku doodi kartaa ilmahan anaa dhalay waa inaa kalsooni buuxda isku lahaatid computerkaas iyo waxaasna wax iska quseeya ma lahan xuquuqda kale haddii aad wax dhaadid way kusoo faragashanayaan laakiin ha isu arkin in aad laptopkan aan waxaan u iibinaysid cunugaaga habi ugu dhigaysa iskuulka lagaa ogolaanayo oo iskuulka kaa ogolaanayaan xuquuqdaada inaa ogaatid insha Allah mar kale waxyaalahaas ka hadli doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu